waxaan ka baxay dalka Kenya anoo u gudbaya Uganda sida ugu sii gudbaya Suudaan oo markaa wadan isku ahayd dabadna halka Liibiya ka kaliya waxaad arkaysaa marka ugu horeysa ee aad ku dhaqaaqdo wada sharci darro ah ama aadoo bila sharci aad wadan kale istiraado gudub dhibaatada ay leedahay wadankii ugu sokeeyayba waxaan kala kulannay inaanu miiska gaariga aanu saaray inaan kuraasta hoostooda ku dhuumano dadkaygii sharafta lahaay wax isbaranayay ee aad garanaysay qiimaha aanu lahayn waxay markiiba noo kaliftay inaanu kuraasta hoostooda galo markaanu ka gudubnay haddana in meel dhaxena lagu qabsado oo la yiraahdo cagaha dhulka qaada haddii kale lacag bixiya sidaan soo ugu soconay waxaanu gaadhnay dalka Suudaan caasimadda Khartoum halkaas aanu ka galay safarkii saxaraha oo ahaa safar aanan ilaaweyn runtii markii aanu ka tagnay magaalada Khartoum anagoo galayna saxaraha baa waxaan gaari weyn baan lagu qaaday gaarigii baa wuxuu nagula jiray jidka saxaraha muddo 12 cisho 20 cisho ku dhow haddana saan ugu jiray un baa gaari yar oo kale naloo keenay gaarigii baa qayb naga mid ah dadkii qaaday saxaraha bartamiisa markaanu maraynay oo cuntadii naga soo dhamaatay oo xaaladayadu ay tahay tii ugu dambeysay aan isku leenahay haddaad gudbaysaan Liibiya baa waxa dhacday in gaarigii uu shidaalkii ka dhamaado waa saxaraha bartamiisa nimankii Liibiyaanka waxay yiraahdeen nimankii nawaday markaa waxay yiraahdeen gacanta noo soo gudeen waxay yiraahdeen halkan aad tegaysaan waxba idin ma jirto gawaari kale ay ku imanayso halka aad ka qaadayso lugta markaanu bilownay waxay ahayd runtii marxalad aanan qiyaasi karayn wixii nagu dhacay waxaanu ahayd dad bilaa cunto ah oo saxaro ku soo jiray intaa oo aan biyo haysan oo lugaynaya 3-4 cisho markaan lugaynaynay oo dadku ay qaybo marxadaysay oo aanu isu soo gaaraynay baa ugu dambeyntii waxaan xasuustaa ninkii noogu da'da weynaa inuu turunturoodo oo dhaco waanu soo qabanay mise nafiba kuma jirto waxay marxalad aanan qiyaasi karayn waxayna ahayd moralkii noogu dambeeyay waayo intayadii kale ee la socotayba waxaan naga hankii aan u lahayn inaan socon karo baa meesha ku dhamaaday waayo qofkii markuu qofida ka dhinto qof kasta wuxuu moodaya inuu dhimanayo marka waxay noqotay inaanu ku dulooyno halkii aanu cabaar joogno dabadeedna aan markii dambe go'aan qaadano inaanu aasno oo ku tukano wixii ka dambeeyay qofkii dhimanaya iyo qofkii dhacaya iyo kii hadhaya toona cid ogaanaysay cid eegaysay toona ma jirto waxyaalaha aanan ilaawi karayn oo igu sawiran waxa kamid ah gabadh ka timi Muqdisho oo kamid ahayd gabdhihii nala lugaynayay baa dhacday waanu dul tagnay waxay tiri anigu xaaladaydu waa adag tahay halkan aan ku dhimanayaa waxaan ku cadeynaa inaan ku dhimanayo ninkaygii baa hore iga soo tahriibay isagoo raba inuu anaga horumarna gaarsiiyo dadna saxaraha ayuu ku dhintay meeshuu ku dhintay waa halka ninkaygii baan ka daba tagayaa guntigay ka soo saartay lacag yar waxay tiri qofkii idinka badbaadaa lacagtaa yar ha gaarsiiyo caruurtaydii waxay ahayd taasina xaalad kale oo aanan runtii ilaawi karayn waxyaalaha taa ka sii daran waxaa ka mid ah gabdhihii quruxda badnaa ee Soomaaliyeed ee sharafta lahaa baan waxaan kula kulannay annagoo 7 dhalinyaro ah oo lugaynayno oo dadkii groupkii kale ka horeyna in aanu guri weyn nimaadno gurigaas annagoo rabnay inaan biyo iyo wax ka cabno magaalada ku dhawaa gurigu baa cidina la hadlay markaan gudaha u sii galay baan waxaan aragnay qof dumar ah waanu la hadalay markay codkayga maqashay bay tirmo Soomaali baa tihiin wayba isku ooydayba walaalayaalow gabadhu markaas silsilad bay ku xidhnayd nin Liibiyaana oo dadka magafiyaasha ah baa meesha ku xidhay waqtina cunu siin jiray waqtina halkaas ku haysan jiray runtii waxay ahayd wax aanan ilaawi karayn runtii hadalku waxaan u maleynay waan dheereeyay run ahaantii maaha waxaan waxdee aan soo koobi karo oran waan idinku sheegay waa xaalad kasta oo ka baxdo dhib badan aad uga gudbayso xaaladtii ka sii daran waxaynu ogeyn dhibaatadii aan saxaraha kala kulannay markii aanu ka gudubnay waanu gudubnay magaalooyinkii waxaanu la kulannay niman raba inay sida xoolaha noo kala iibiyaan dadkaygii bini'aadanka run ahaantii waxyaalaha aanan ilaaweyn waxaa ka mid ah marka aanu magafayaashu ay gacanta nagu dhigeen oo ay nagu xukumeen inaan lacag bixinno qayra macquula lacagtii
annagoo isu diirnaxayna maadaama aanu dhib badan soo wada maray inaanu diidno inay yidhaahdaan waxaad u malaynaysaa inaad dhulkiinii joogtaan yar naga warsuga dabadeedna in ay noo soo qaataan buradh iyo hub oo ay nagu garaacaan dabadeedna aanu u damqani weyno oo aanu weli diidno ay markii dambe haddana yidhaahdaan waxba maydaan arag dabadeedna ay yidhaahdaan annagu idinkoo kale waxaanu tusaale ku siinaa kuwii idinka soo horreeyey ee lacagta bixin kari waayey dabadeedna ay soo qabtaan inan yar oo Soomaaliya oo dadkii hore ee lacagta bixin kari waayey ah dabadeedna annagana hub iyo baashish ay nolol dul istaagaan inankii yaraana miis halkana intay saaraan ay masaabiir soo qaadaan ay gacmaha iyo lugaha iyo meel walba kaga garaacaan run ahaantii waanu damqannay oo waanu isqaban kari weynay annagiina dhaawacyaana soo gaadhay hablihii ku dumar uur leh baa nagu jiray kuwii uurka lahaa in uurka laad lagala dhaco si ilmaha looga soo tuuro iyadoo la rabo in lagu dhaqan geliyo si aad lacagta u bixisid ma ahayn xaalad aan qiyaasi karo markii aan ka baxnay qaybtayadii ka baxday qayb iyagoo korontooyin loo isticmaalaya ama ay la siinaya noogu dambaysay qaybtayadii ka badbaaday ee ka baxday markaanu ka baxnay annagoo isle waxba idiima hadhin waxaanu gallay magaalada Tripoli markaanu gallay waxaanuba u gallay mawjad kale oo iyaduna aadanba qiyaasi karayn dad iyagu ku diirnacaya kalarkaagaa diidan run ahaantii kuwa dhaqmaya sida xayawaanka sigaar hadday doonaan kugu baktiinaya kugu buufinaya waxyaalahan qashin lagu buufiyo aynu baranbarooyinka iskaga buufino si ay kuu tusaan nacaybka ay ku hayaan iyo inaada waddankaaga joogin waxaa ka sii daran taha markaanu badda gallay oo baddii annagoo isla baddii baad maanta gasheenoo waad socoteen oo waxaad tagteen dhulkaad u socoteen dabadeedna oo doon sugaynaa in gaadhigiina lagu soo qaaday bac yar laga soo dejiyo dabadeedna hortayada mashiin yar lagu qabto oo lagu buufiyo ayba doon noqoto wax yaroo aan 20 qof loogu talagelin in lagu saaro 70 qof inaanu sidii badda ku gallo in mawjad kastoo naga hor timaada ay naceliso oo naga awood badato ugu dambeyntii in ay mashiinkii yaraa uu badda galo ila awood baa uma leh ku kaxayn baash ku kaxayse ku dhaqaajiye dabadeedna in aanu iska sabayno in minute kasta ama second kasta oo doontu ay hoos socotoba aanu isnahno way idin dhamaatay oo hinta baroorta iyo markii dambe inaanu quusanayba waxaan xasuustaa inaan dhalinyaro ah oo naga mid ahaa oo dadkii dhibaato badan soo jeelasha ku soo maray Liibiya inuu markii dambe xaaladda intuu dul qaadan kari waayo uu sawirto inuu joogo Laamaduusa dabadeedna badda anoo ku dhex jira uu yiraahdo hay dhaafinina dabaqyada dhaadheer oo badda isku tuuro xaaladaas aanu gaadhnay run ahaantii xaalad kasta oo halka kuma soo koobi karo waqtiguna uu yar yahay marka intaas qodobka ka run ahaantii talada ilaahay baa haya kii ilaahay waaninayo u baawaantoobaya inkastoo dad badan oo aan xog hayn ay jiraan oo taariibtaan xog hayn marka koobaad intaadan taariibin horta ogow xaqiiqada dhabta ah ee ka sokaysa taariibta iyo meesha digigsanayso qodobka labaad marka taariibto dhibaatada ay waalidka marayaan iyo dhibaatada aad adigu marayso iyo dhibaatada dalka aad ka tagtay booska aad ugu jirtay markaad banayso sida uu noqonayo intaaba inaad isweydiisaana waa muhiim talada ugu weyn aan isleeyahay aan la wadaagay walaalahay waxa weeye waadna aragtaan annaga oo waxaanu gaadhnay Laamaduusa iyo meelihii loo tahriibayay waanaga halka maanta ka fadhina dalkayaga ku qanacsan waad aragtaa walaalkan Switzerland buu gaadhay waxba inaanay ool buu sheego xaqiiqadii ah hooyada maanta inala joogta dhibaatadeeda waad aragtaan iyo waxay marayso bal hooyada ku qudra qaato hooyadaas dhibaatada ay marayso qofna laba jecel hooyadii inay marto waxaan ku soo koobayaa indhaha dhalinyartu ha kala furto xaqiiqada tahriibtana ha la ogaado tahriibi daw inooma aha dalkeena wax waliba yaalaan aynu ku qanacno aamino markaynu aamino dalkeena markaas wada kasta oo aynu wax ku helayna inoo furmaysa barbaarteeni huleelo helinka qaade
kuwa hanti loo aftuubay kuwa hoganaya jeelka miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubaala miyaan taliyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin